warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarka Ilhaan Cumar lagu qaaday iyadoona haatan warar soo dhacay ay sheegayaan in ciidan ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran Mareykanka ay bilaabeen in ay dabagal ku sameeyaan ninkan waxa la wareegay xogta iyo sirta guud ahaan suntii uu gacanta ku watay iyadoona muuqaalka aad daawan kartaan aad ka arkaysaan Ilhaan Cumar oo dhinac isku dayaysa in ugu beerto ama ugu leexato suntaasi walow la sheegay in qayb ka mid ah jirkeeda uu gaaray sargaal saro ka tirsan waaxda dambi baarista booliiska Mareykanka gaar ahaan maamulka dhanka Minneapolis waxa uu sheegay in anitaan ay tahay dambi iyo ku tumasho dhanka dastuurka laakiin aanay lagu hari doonin ninka iyo cidii kale ee ku gacansiisay arrintaasi ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta gudaha Mareykanka arrintan waxay ka soo xigteen in ay socdaan dadaalo kala duwan iyadoona la arkayay Ilhaan Cumar oo isku dayaysa inay ka sigato ama ka dhaqaaqdo goobta waxaana markii dambe xubno ka tirsan ilaaladeeda gaarka ay balay sameeyeen howlgal baaxad weyn oo ay ku qabteen ninka sidaasi sameeyay kadib waxay ku wareejiyeen booliiska federaalka iyagoona ugu dambeyn sameeyay tallaabo xooggan oo lagu sheegay inay ahayd mid geesinimo leh laakiin Ilhaan ayaa tallaabada ay sameysay iyana waxa ay keentay falanqeyn fara badan inay ka sameeyaan dadka qaarkood iyagoona tusaale u soo qaatay siyaasiyiin iyo xubno kale u dhashay dalka Mareykanka oo sidaan oo kale caqabado iyo culays kala kulmay goobo kala duwan laakiin xafladihii iyo khudbadihii ay jeedinayeen ka cararay Ilhaan ayaa markii uu imaaday qof ka mid ah ragga sida gaarka amnigeeda u suga waxa uu sheegay in ay joojiso khudbadda ay jeedinaysa laakiin Ilhaan waa ay diiday iyadoona sheegtay in aanay hadafka u rumayn doonin dadka doonayay inay carqaladayaan khudbadda ay jeedinaysay taas oo ugu dambeyn suuro gelisay in Ilhaan Cumar ay sii wadato hadal jeedinteeda sida ka muuqata muuqaalkii ugu dambeeyay arrintaasi laga baahiyay wararka soo baxay waxay tilmaamayaan in Mareykanka baaritaanadan uu ku soo saari doono warbixin qaada doonta ilaa 7 ama in 2 toddobaad ku siman taas oo keentay in xitaa la baari doono dharka Ilhaan Cumar ay wadatay qaybaha sunta uu gaaray si baaritaanka guud loo xaqiijiyo iyadoo qudhido ayaa loo diray goobo caafimaad oo baaritaankeeda ama caafimaadkeeda lagu hubinayo maadaama waxa lagu seeriyay ay ahaayeen waxyaabo qurman ama uraya sida ay sheegeen dadkii goobta ku sugnaa marqura ayaa dareenka isbedelay laakiin Ilhaan ayaa fadhiga ku soo celisay sidiisii hore iyadoon ugu dambeyn Ilhaan laga arkayay muuqaaladii ay soo duubeen kaamirooyinkii tooska ahaa kulankii dood ahaa ee lagu hadlayay dhibaatooyinka ay qabaan bulshada Soomaaliyeed ee qaybta ka tahay ee dalka Mareykanka in ay isku dayaysay in khudbadeeda ay sii wadato ciidan ka tirsan kuwa ilaalada gaarka ah ee xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ugu dambeyn waxay sameeyeen talaab xooggan oo ay amniga ku sugayaan iyagoona ugu dambeyn hor joogsaday ama istaagay meel horteeda si ay uga hortagaan haddii dadka weerarka geysanaya ama qofka weerarka geystay ay la socdaan dad kale sida ay sheegeen ila kala duwan wixii warar dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraasi ku daawo waad ku maasantahay daawashada ila socodka wararka iyaga